السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadlaynaa amniga magaalada muqdisho oo faraha ka baxay. waxaynu arkayna maxay ahayd madaxtooyadii meel ku dhow la garaacayo ee qodoy soo galeen joogaan. waxaynu maqlaynay iyadoo la leeyahay madaxtooyada laftigeeda kuwa ilaalada joogta waxa weeyaan qolyahaas. waxaynu maqlaynay xildhibaanadii qaylinaya oo qaarkood leeyihiin guryaha agtooda laga qabtay nimankii iyagoo le meeshii waxay ahayd xaruntii billi Hargeysa ma aamini karno oo nalala jooga. waxaynu arkaynay meel kastoo iyadoo qayl ka baxayso. waxaynu arkaynay xildhibaanadii dacwoonaya qaylinaya oo leh amnigayga khatar ku jira. waxaan qaban ma jirto intaanu joognay. haddii heshiisii la galay haddaan la gelinba wax nala horkeena ma jiraan. waxaanu nahay dad meeshaas ka jooga, amnigaygana khatar buu ku jira. waxaan leeyahay xildhibaanada waa wixii aad shaqaysateen baan leenahay. idinkoo wanaag haysta iyo dowlad hagaagsan oo idin dadaalaysa oo si fiican u shaqaynaysa idinkoo haysta waataad qaylo ku walateen oo shicibka Soomaaliyeed niyadda ka jabisay. amnigana si fiican loo sugayo 100%. oo wax kastoo shaqo heshiis kastoo dowladdu ay gasho hortiina la keenayo intaan la gelin si fiican iyadoo dowladdii hore idin qiimaysa waad ku mucaaradeen idinkoo qabiil iyo qabyaalad eegaya. marka halka maanta dalku marayo idinka dhiga mas-uuliyadda idinka qaadanaya. idinkaa u sacbatumaya baan leeyahay xildhibaanada aadan madoobe, sacdiya firimbi, xasan sheekh, mahad salaad, wax walba idinka ansixiyo keena meesha. marka wixii idinku shaqaysateen baad midhahooda guranaysaan maanta. wax Soomaaliyeed ka naxayaan ma jiraan. waayo dowladnimada Soomaaliya ku ciyaarteen. dowladnimadii hore u soconaysa wanaagsaneed oo dhisantay baad dib u celiseen. ciidankii baa burburay, wax kastaa burburay, heshiisyadii baa burburay. maxay caalamka lala galay, horumarkii dalka burburay. marka mas-uuliyadda idinka qaadanaya wax idinka naxayaan ma jiraan. waxaanu leenahay waa shaqaysateen weeyaan, waa abaalkiin. intii wanaagsaneed kasoo horjeeday mooyaane oo dowladdii hore raacsanayd mooyaane inta kale waa waajibkiin baanu leenahay. waataad qaylo ku walateen idinkoo raaxo ku jira oo amniginu sugan yahay 100%. oo lacagtiin saa idinku soo dhacayso 26 bisha wax kasta mushaharkiisa soo dhacay mushaharkiina dowladnimo dee noqday rasmi. waa tiraan waana la qabsanaya waa ciidan baa wana duldhiga. ciidankii amnigiina sugayay waa tiraan wana nala duldhiga. waa arkaya kuwa wasiira sheeganayo xildhibaanada ka mid ahaa oo waana la qabsaday culays baabana la saaray. maanta waxay noqotay inaad cidlo taagnaata oo marba kii la doonayo lala baxo oo laydin bahdilo, sharafta laydinka qaado, oo aqoonsiga laydinka qaado, oo sidii la doonayo laydinla dhaqmo. waajibkiin weeyaan. marka xaalku waa qasan yahay, wax laga qaban karana maaha. idinka idin taala saa yeeli lahaydeen. ama ka qaxo gurigiinna qabta, ama wax saa doontaan yeela, ama wax ka qabta ama wax ka qabanina. wax rajo horta dadweynaha Soomaaliyeed idinka leeyihiin ma jirto. rajadii Soomaalida ummadda Soomaaliyed waxay jabiseen markii aad dadka laydinka digayay keenteen. marka waxaan leeyahay taas waa abaalkiin. wixii wax laga qaban karana maaha.
inta hagaagsanna waxaan leeyahay ka tago gurigiina qabta waddankiina qabta dhulkiina qabta mar haddii madaxtooyada dhexdeeda laga shaqeynayo meel walba laga shaqeynayo farahay ka baxday arrinta xildhibaan uun ama qayla ma iska da nimcadii ilaahay siiyey idinka garan waaya iyo wanaaggii iyo dulqaadkii iyo sharaftii halkaa idinkaas dhigay saasaan leeyahay waxna lagama qaban karo asxaabta igu xidhan waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waa ku mahadsantihiin iminkana waxaan ka codsanayaa inaad layg ii saartaan layg la dhaca iyo sheer insha allah bismillahi kariim sidaa meel fog u gaadhaan wararka aanu soo deyno maxay ahayd aad baad ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan kusoo koobay